Assalaamu calaykum. Tani waa mid ka mid ah sheekooyinka ugu argagaxa badan ee aad noloshaada maqli doonto. Dhacdadan ayaa waxa qabsatay gabar lagu magacaabo Elisa xilli ay ayadeeda la joogtay. Elisa waxay leedahay ayadeeda waa qof habdhaqankeeda iyo dabcigeeduba laga cabsado, misna argagax weyn ku reebaya qofka la nool iyada. Inta badan waxay dhex fadhisaa qolkeeda oo mugdi ah, qofna uma ogola qolkeeda xitaa in uu ka agdhawaado. Balse maalin ay Elisa qolkii gashay waxay ku soo aragtay noole ay weligeedii mooday inuu qiyaal yahay. Ilaa maantayna kama daba harin oo nolosheedii oo dil ayuu mugdi geliyay. Ku soo dhawaada muuqaal cusub iyo mid ka mid ah sheekooyinka aadka u argagax badan ee barta Reddit. Elisa aabaheed wuxuu dhintay iyadoo jirta 13 sano. Xusuusta ammaankeedii ka go'in mar walba oo ay aabaheedii soo xasuusataa waa dalxiis uu mar u kaxeeyay dhammaan qoyskooda iyagoo aaday guri magaalka banaankeeda uu ku lahaa aabahooda oo ku yeelay gobolka New Hampshire. Xilli dheereed oo ay geeduhu daasheen caleemaha, inta badan waqtigoodu waxay ku qaadanayeen inay fuulaan buurta loo yaqaano Mount Monadnock iyo in ay isaga dabaashaan harubiyeed oo gurigeedu ka agdhaweyd. Habeenkii marka la gaarana inta ay barxad isugu yimaadaan ayuu aabahood uga sheekeyn jiray sheekooyin ruuxaan ama reer aakhiraad. Mararka kalena ay hayso wada jiraha qaadi jireen sida heesta caanka ah ee uu qaaday Leo Cyrus, More Than I Can Say. Waxay kaloo aad u xasuusataa xidigyada quruxda badnaa ee isku shareeray samada saafiga ah ee magaalka banaankeeda. Xidigyo aad la yaabayso quruxdooda, indhahadan aadan u dhamin karin, misna ku abuuray gudaha qalbigeeda dareen ay ku tilmaamtay mid wadnaha istaajin gaaray. Kadib dhowr bilood markii ay ka soo wareegatay geerida aabaheeda, Elisa waxaa la geeyay guriga ayadeeda oo ku yeelay gobolka Maine. Intii ay wadada ku jireen, hooyadeed ayaa u sheegtay in ay tahay qof yara dabeecad qalafsan, misna xanaaqeedu aad u dhow yahay. Waxayna uga dardaarantay inay ka fogaato wax waliba oo ayadeed ka xanaajin kara. Waxay kaloo ku tiri, waxaan ku soo laaban doonaa isbuuc iyo xoogaa kadib si aan ku wado gabar wanaagsan u noqo ayadeeda macaanay. Dhanka kale, Elisa hooyadeed aad bay isugu buuqsan tahay ilaa maalinka uu ninkeedii dhintay kadib. Waxay ku mashquulsan tahay iibinta guriga iyo in alaabihii guriga ay kala rarto. Elisa laftirkeed way ka warhaysaa xaaladda ay hooyadeed ku sugan tahay, in aynan haysan garab caawiya, misna iyada laga rabay in hooyadeed ay caabiso. Dabcan iyaduba way rabtay midda wayna caawin lahayd haddii aysan ahaadeen ragga suudadka madow wata ee gurigoodii imaada. Inkastoo hooyadeed ay ku tiri raggan aabahaaga ayay deymo ku leeyihiin, sidaa ayayna u yimaadaan, haddana Elisa taa maynan aaminin. Waayo 3 habeen ka hor mar ay soo kacday saqbarkii habeenimo ayaa mid ka mid ah raggan waxay ku aragtay asagoo taagan daaqada qolkeeda, misna u dhoola cadeynaya. arrinkan hooyadeeda way u sheegtay, balse haddana waxaa lagu yiri laga yaabay inay riyo ahaayeen waxaasi. Almuhim, Elisa xabsi ay ka qabto raggaasi ayaa ayadeed loogu keenay si ay muddo halkan ugu jawaab bedelato. Allah yaa u sheega in wax intaa ka daran ay ku sugayaan guriga ayadeeda. Ugu dambeyn waxay yimaadeen xaafadii ayayo. waabatan ayayo banaanka ayay taagan tahay oo iyagu ay sugaysaa. Qof aad u waayeela, jirkeedu uu isku dhacay, lehna indha aad u madow. Markii ay Elisa hooyadeed baxday, ayadeed inta ay u soo dhawaatay ay ku tiri, dhowrkan todobaadeed ila joogto waa inaadan idhibin, waa inaadan farahaaga la gelin wax aan adiga ku qusayn. Taa waxaa kaaga sii muhiimsan, kuuma arki karo qolkeyga jiifka. May fahamtay Elisa? Elisa inta ay yara cabsatay ayay tiri, waxay leedahay naxaybka iyo adkaanta ka muuqata indhaha ayayo ayaa aad ii cabsi geliyay. Waxay moodaa in ay tahay cajuusooyinka saxiirooyinka ah ee aabba uga sheekeyn jiray. Waxaan yaqiinsaday in haddii aan hal qalad galo ayayo midda ay ugu dhigto la yaabi doono. Daqiiqadaha ugu horeeyay ee ayadeeda ay la joogtay ayaaba ku reebay baqtiin iyo in ayba ka shalaydo waxa halkan keenay. Dhanka wanaagsan ee la joogista ayadeeda waxay ahayd in ayadeed ay ku nooleed guri aad u qurux badan oo ku yeelay xeebta Wonderhill Beach, xeeb saafi ah oo aan lahayn qaylo iyo wax buuqa. Dhawaaqa hirarkuna dhagahaagu ay ku raaxaysanayaan. Elisa aad bay u jecleyd daawashada xeebtan. Aroor kastana markay hurdada ka soo toosto waxay u soo cariri jirtay daaqada weyn ee ku tiilay qolka fadhiga, iyadoo inta badan maalinkeedii halkaasi ku qaadan jirtay. Dhanka xun marka laga eego, Elisa ayadeed ayaa ahayd qof habdhaqankeeda iyo dabcigeeduba laga cabsado, misna argagax weyn ku reebaya qofka la nool iyada. Subax kasta iyo fiid kastaba waxay had iyo goor ku jiri jirtay qolkeeda jiifka, iyadoo albaabka isku soo qufuli jirtay. sidoo kale habeen kasta xilli dambe abbaaro 9 saac marka la gaaro waxay aadi jirtay dhanka iyo xeebta. Inta waxa kaaga sii argagax badnaa galabyada kamid ah Elisa ayaa damacday inay ayadeed weydiiso haddii ay hayso tiishka suuliga loo isticmaalo maadaama midkii yaalay uu dhamaaday. Waxay leedahay waxaan aaday qolka ayayo sidaan u socday ayaan damcay inaan albaabkeedii furo oo qof walba uma saarneen
albaabkii ayaa ii furmay anigoon albaabkii si toos ah u balaqin ayaa hal mar waxaan ka war helay gacan haadaysa oo gadaal ii tuurtay waaba ayeeyo oo aad yaabayso sida ay u xanaaqsan tahay inta ay aad iigu qaylisay ayay albaabkeedii hoosta ka soo xiratay kahor intaanay albaabkii xirin ayaan waxaan arkay shay gadaasheeda ka dhaqdhaqaaqaya wuxuu ahaa hoos madow oo humaag uu ku jiro ma ahayn wax bani aadam shabaha maalinkaa kadib kama agdhowaan qolkeeda iyo hareerihiisaba waxay inta badan u dhexaysay qolkeeda iyo qolka fadhiga oo isagu xeebta ku sii jeeday 5 maalmood uun kadib maalin iyada oo daawanaysa TV-ga yeelay qolka fadhiga ayaa Elisa waxa dhulka uga dhacay remote-ka TV-ga inta Sophie ay ka soo degtay ayay damacday inay soo qabsato remote-kii waxayba Sophie mid kamid ah hoostoodii ku aragtay buug aad u weyn inta ay hareeraheedii eegtay ay waxay soo qaaday buuggii waxay aad ula yaabtay garbadka buuggan oo ka samaysnaa shay jilicsan misna jiidmaaya ma ahayn garbadka buug caadi ah Elisa weli ma aanay ilaawin wixii ayeedeed ay galabkii hore ku sameeyday inta ay yara cabsatay ayay buuggii meeshiisii ku celisay muddo yar kadib way ka ahaan weeday inkastoo ay ka baqayso ayeeyo haddana waxay rabtaa inay aragto waxa ku qoran buuggan maxay dhibaysaa haddaan akhriyo dhowr buug ayeeyo ima ogaanayso intaynay arag ayaan meeshiisii ku celinayaa inta ay indhihii isku qabatay ayay hal goor go'aan qaadatay misna buuggii ayay kala furtay waxay indhaheedii isla markiiba ku dhacay sawir buuggii ugu horeeyayba waxaa ku sawirnayd haweeney qaaban iyo wax iyada isku duubaya sida inuu habsiinayo kale ma ahayn qof bani aadam ah shay indho aad u madow leh iyo ilka aad moodo sakiin waxay gacmahoodii ku hayaan shay dhiigaya dabcan ma taqaano waxa uu yahay si waxay u egyahay shay lama qaarsiibay ama aan bandhahno anug maqaarko dhan laga solay inta markay aragtay wadnaheedii wuxuu bilaabay inuu aad u garaacmo buuggii xigay ayay u rogtay buugga waxa ku qoran qoraalo aynan iyadu fahmeyn ma aha luqadaha ay taqaano waxay kaliya taqaanaa English iyo Chinese maadaama reerkeedu ay ka soo jeedaan China mar walba oo erayada buugga ay si qoto dheer u sii eegto waxay u sii muuqanayaan sida noole oo kale waaba erayo u dhaqdhaqaaqaya sida dixriga sawiro kala duwan ayaa maskaxdeeda u sawirmaya waxay aragtaa munaarad cad oo burburtay misna dhextaala gunta hoose ee badda hareeraheed waxaa buuxa caruur yar oo iyagu dayactiraya munaaradan misna ilimada ay ka qabanayso jirkoodoo dhan waxaa ku yaal dhaawac aad u xun aadan isha u dhammayn karin mid ka mid ah caruurtan wuxuu madaxiisa oo go'an ku sitaa labadiisa gacmo dhanka kale waxay ka aragtaa xayawaano u eg mantle rays oo baalashoodu aad moodo inay la eg yihiin 13 mitir lehna indho aad u waaweyn oo madow iyo af aad u dheer kuwa oo iyagu hal mar ku dul habsada canugii isku daya inuu cararo waxa kale oo u muuqda kubad aad u weyn oo ka baxayo iftiin buluug ah taa waxa ka sii hooseeya xayawaan aad u weyn oo u eg midkan hadeer shaashada kaaga muuqda oo isagu halka dul sabeynaya iyadoo buuggii sida u eegaysa ayaa hal goor telefoonkii guriga soo dhacay inta ay ka cabsatay in ay qolkeeda ay ka soo baxdo si telefoonka ay u qabato ayay buuggii ku celisay meeshiisii waxay leedahay indhahaygii aad bay ii xanuunayeen oo waxbay ugu adkaaday inaan kala furo lugahaygii warkoodii daa waxaad moodaa in dhulka lagu masaxay oo xitaa waan qaadi kari waayay xoogaha yar kadib marka aan yara roonaaday ayaan qolkaygii ku cararay habeenkii xigay oo dhan indho isma gelin Elisa waxay bamaankeedii ka bixin weyday sawirihii argagaxa badnaa ay aragtay maxay ahaayeen waxaan macquul ma aha inaan ka haro waa inaan waxba ka ogaadaa ka waran haddii aan ayeeyo weydiiyo soo buugga ayada ma laha dabcan macluumaadkoodu way ogtahay maya ayeeyo haddayba ogaato inaan buuggeedii taabtay kow ayay iga siinaysaa hal mar unba waxaan niyadeedii ka guuxay ka waran haddii aan qolka ayeeyo galo laga yaabaa inaan wax intaan ka badan aan ku dhex arko buugaag kale ama xitaa bal ka waran haddii ay ayeedeed qabato iyadoo qolkeedii ku jirta ugu horeen sidee ayay ku geli kartaa qolkaasi Elisa waxa durbadiiba niyadeeda ku soo dhacay fursad ay qolka ayeedeed ku gali karto ka waran habeenkii saqdhexe markay baxdo haddaan inta aan doonto sidaas aan ku galo qolkeeda ka hor inta aynan imaanna aan ka soo baxo go'aankii inta ay qaadatay ay waxay sugtay ilaa ayeedeed ay guriga ka baxdo wixii waqtigu socdaaba hal goor ayay maqashay dhawaaqa saanta ayeedeeda oo albaabka ka sii baxaysa isla markii ay maqashay albaabka oo la sii xiray ayay ayadana sariirteedii ka soo booday sida ay u soo socotay marka ay ku beegan tahay daarada dhexe ee guriga ayaa Elisa cabsi weyn gashay ka waran haddii ayeeyo aynan weli bixinba ka waran haddii ay siriq ii dhigayso oo ay i dareentay inaan rabo qolkeeda wixii madooba haddii uu qolka igu dhexelo ka waran su'aalahaasi ayaa maankeedii ka guuxay muddo waxay dhex taagneed darasada iyadoo ka labalabaynaysa misna dhididka ka socda aad moodo sida qof biyo lagu qoyay waxbaa jiidanaya oo ma rabto inay dib ugu laabato qolkeeda inta ay talaabadii sii waday ayay ugu dambeyn waxay tagtay albaabkii qolka ayeedeeda joog Elisa waxa aad sameynayso soo qalad ma ahan iyadoon weli furin albaabka qolkii ayeeyo ayaa hal mar waxay maqashay
albaabkii weynaa ee guriga oo la soo furay. waa ayeeyo wayna soo laabatay. macquul ma aha, maxaa ciyow soo celiyey? qaraxan dartii wadnihii ayaad moodaa in uu kala dilaacmay. suuragal ma aha inay qolkeedii ku laabato, waayo si kasta haddii ay dib u laabato ayeedeed way arki doontaa. waddo kale oo u bannaan ma lahan. bilaa shaki albaabka qolkii ayeeyo ayay furtay oo gudihii ayay u gashay. qol mugdi ah oo ay ka dhex shidan yihiin dhowr shumac, dhanna ay taalo sariir. wax kale oo qolkii yeelay ma laha. halka meel ay ku dhowman kartana waa sariirta hoosteeda. inta ay carartay ay sariirta isku ciriirisay, iyadoo ugu dambayn dirqi iyo tubbaas ku gashay. wax yar kadib qolkii waxaa soo gashay ayeeyadeeda. nasiib xumo, isla markii ay soo gashay albaabkii ayay quful saaratay. Alisa halkan meel ay kaga baxdo oo kale ma lahan ilaa subaxii laga gaaro oo ay ayeedeed qolka furto ama ay hurdo si ay iyadu kaga baxsato. ayeedeedii sida ay u soo socotayba hal goor ayay jilbihii dhulka dhigatay, iyadoo u jeesatay dhanka miis meesha yeelay oo dhan ay ka saarnaayeen shumacyadii, gambaleel, dhagax badeed iyo kaba caruureed. waxay bilowday inay madaxeeda ruxdo, mararka qaarna ay sujuuddo. Alisa waxaanoo dhan ayeedeed kuma ogeen. reerkeedu ma aha reer diimeed. inta ay xoogaha madaxii kor u qaadatay ee bilowday inay si fiican ay u eegto waxa ayeedeed ay sameynayso. wixii ay sujuudaaba ayeedii waxay hal goor bilowday inay kor ugu qaylido erayo aynan Alisa garanayn. ma aha luqad ay fahmi karto. erayo dhagaha damqinaya sida cirbid in lagu mudaayo oo kale. malaha waaba kuwa la mida kuwii buugga ku qornaa. ayeedeedii ayaa hal goor u jeesatay dhanka shay yara duuduuban oo dhinaceeda yeelay. inta hal goor sida maskii oo kale ay hees u tiri ayay gacmaheeda oo si la yaab leh u dhaqaaqaya soo qabatay shay. markaasay waxay tiri, weyni adigay ku sugnaatay rabbiyow, waqlalkan waxaan kuugu keenay si aad iigu kaxaysato oo aan la jirkaagii ugu ahaado gunta hoose ee badda. Alisa way rumaysan weyday waxa indhaheedii ay ku arkayso. ayeedeed waxay kor u haysaa waa canug aad u yar, weliba cunaha laga qalay. inta aanay ishii usii dhammayn ayay ayeedeedii hal goor canuga dhulka dhigtay, iyadoo isla markiiba haddana mar kale gacmaheedii kor u qaaday, bilowdayna inay isku ruxdo gees. durbadiiba waxaa dhanka kale ka soo baxay shay leh humaag madow oo u hayaamaya halka canug yaraa la dhigay. Alisa way taqaana waxaan waa wixii ay aragtay galabkii ay ayeedeeda qolka u imaanaysay. waxay kaloo soo xasuusatay in mar kale ay ku aragtay buuggii. waa mid ka mid ah ruuxaantii jir dilaysay carruurta yareed. waxay niyadda ka dhahaysaa, maxaa halkan i keenay oo hooyaday iga soo waday? Alisa istaji, waa humaag oo keliya, waxba kaama dhibaayo, ha cabsan. waxaa dhegaheedii ku soo dhacay cod aad u jixinjix badan, cod aad moodayso xayawaan cunaaya hilib misna jajabinaya lafo. macquul ma ahan, macanugii yaraa ayuu cunayaa. inta ay indhihii isku qabatay ayay bilowday inay suuraysato waxa ayeedeed ay ku samayn doonto haddii ay halkan ku aragto. laga yaabay sida canugan yar. maya si kadis ah ayaa hal mar waxaan maankeedii ku soo dhacay sawirada ay ku aragtay buuggii, balse markan ka sii daran waxaad moodaa inay iyaduba badda kunteeda ku jirto oo ay dhex dabaashanayso. waxay aragtaa munaaradii caddeed iyo ciyaalkii yaraa oo intooda badan dhintay. waxbaa hoos u sii jiidanaya, weliba dhanka kubaddii baluuga ahayd. sidii ay u sii socotayba waxay aad ugu dhowaatay wixii. hal goor ayaaba waxaa horteedii ka soo baxay il aad u weyn, isha bahal aan xajmigiisii la qiyaasi karayn. si awood daran ayaa haddana kusii tuurtay gunta hoose ee badda. markan waxayba aragtaa nolol kale. iyadu maba joogto qolkii ayeedeeda ama gunta hoose ee badda ee waa maalinkii ugu xumaa ee nolosheeda. waxay qaybta gadaale ka saaran tahay gaariga aabaheeda oo dalxiis ayay u sii jeedaan. wixii gaarigu sii socdaaba waxaa dhegaheedii hal goor ku soo dhacay qaylada hooyadeeda, aadam iska eeg waddada. waxay aragtaa taraag aad u weyn oo dhankoodii ku soo socda, kaa oo si xun ugu dhacay gaarigooda misna ka tuuray waddadii. Alisa waxay ku soo mirheshay oohinta hooyadeeda, aaway aabe, maya ka joog Alisa, ha aadin. intay 2 tilaabo horay u qaaday ayay eegtay dhanka kale ee waddada. waa aabaheedii, balse ay garan weeday inuu yahay. ma laha calaamad ay ku garato oo inta jirkiisii uu aad u go'go'ay ayuu ku shiilmay laamigii. intan kadib ma garanayso xaaladdeeda, waxayna ugu dambayn ku soo mirheshay iyadoo hoosta uga jirta sariirtii ayeedeeda, misna sida ay u qaylinaysay dhuunta ay kala go'day. xaaladdeedana aan la tilmaami karayn. waxay leedahay, marka aan qolkii eegay wuxuu ahaa eber oo qofna ma joogin. ma aqaan meeshii ay ka baxday ayeeyo, ma aqaan in wixii madoowaa ay wateen oo badda kuntooda ay la tageen. durbadiiba waxaan ka soo cararay qolkii. ma aqaan wixii xigay aan sameeyey. ma garanayo inaan bas soo qaatay, mase ogi inaan orodkii ku imid. waxaan is arkay oo keliya anigoo jooga guriga hooyo hortiisa, misna ay hooyo i hayso iyadoo i weydiinaysa intay ku maqnayd. 2 isbuuc oo dhan ayaan ku la'ayn. wixii maalinka ka dambeeyey markaan soo xasuusto gunta hoose ee badda iyo carruurtii yaraa, afkayga qaylo ma joojiyo. noloshaydiina waxay isku beddeshay mid mugdi ah. ma dareemo waxaan ahayn murug, cabsi iyo argagax joogto ah. ma dareemo farxad iyo wax la mid ahba. ilaa maantay waxaa xaaladdeeda la tacaala dhaqaatiir nafsi
oo iyagu aad ii caawiyey xaqiiqdii ma rabo inaan mar dambe arko bad ama xitaa gurigii ayeeyo ayadu maba aqaan sida xaalkeedu yahay lamana yaqaano halka jaan iyo cirib ay dhigtay waxaan rabaa inaan dib u helo farxaddii markii aan yaraa waxaan ka cabsanayaa in wixii madooba ay ka xistaan anigana waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan iyo taageerada aadku wacan ee aad noo muujiseen fadlan haddii muuqaalku ka cajab geliyey ha ilaawin inaad la garayso sidoo kale haddii aad la dhacday muuqaalkan daawo muuqaalkan oo asiguna aad ku cajabin doona